waayahay kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal soo dhawaada marka hore waxa idin la wadaagayaa wararka ku saabsan kulanka lagu wado inuu dhex maro madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed oo lagu wado inuu ka dhaco magaalada Ankara ee dalka Turkiga kulankaas oo ay garwadeen ka tahay dawladda Turkiga gaar ahaan madaxweynaha dalkaasi Recep Tayyip Erdogan warar sheegaya in ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya uu haatan uu ka soo dibcay sidii hore walibana lagu wado ama la rajeynayo in kulanka ka hor waxyaabo badan oo iska bedelo oo ku aadan heshiiskii uu horaantii sanadkan la galay maamulka Soomaaliland ee ku aadanaa heshiiskii ee ugu saxiixay maamulka Soomaaliland ee qayb ka mid ah badda Soomaaliya ee taa dawladda Soomaaliya ay si weyn uga carootay soo dhaw warbixin arintaas ku saabsan ayaan jecelahay inaan kula wadaago haddii ay tahay markii ugu horeysay muuqaalka ku soo gaaro like saar muuqaalka siina share garay si saaxiibada kale u gaaro haddii aadan ka mid ahayn saaxiibada sida joogtada nagu xiranna follow the page-ka si mar walba uu ku soo gaaro wararkeena sidaad la socotaan magaalada Ankara ee dalka Turkiga waxaa lagu wadaa in ay kulan foolka fool ah markii ugu horeysay ay ku yeeshaan ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo labada mas'uul oo kala hogaamiya dawladda Soomaaliya iyo sidoo kale dalka Itoobiya oo khilaaf weyn u hareeyay walibana muddooyinkii ugu dambeeyay khilaafkooda uu gaaray heerkii ugu sareeyay khilaafkaasi ayaana yimid kadib markii dawladda Itoobiya ay heshiis sharci darro ah ay la gaartay maamulka Soomaaliland kaas oo ahaa heshiiska in Soomaaliland ay u saxiixday dalka Itoobiya qayb ka mid ah xeebaha Soomaaliya taa beddelkeedana Itoobiya ay Soomaaliland ay u aqoonsato dalka madax banaan ee dalka Soomaaliya arintaas markay soo ifbaxday ayaa si weyn waxa ugu horyimid dawladda Soomaaliya iyo madaxdeeda dawladda Soomaaliya madaxweynaha uu hogaamiyo Xasan Sheekh Maxamuud ayaana arintaas ku tilmaamay heshiiska ay gaareen labada dhinac ee Soomaaliland iyo sidoo kale Itoobiya in ay tahay mid baalmarsan sharciga iyo sidoo kale in Itoobiya ay ku xadgudubtay madax banaanida dhuleed iyo midnimada dalka Soomaaliya warar haatan soo baxaya ayaa sheegaya in ra'iisul wasaaraha Itoobiya uu ka soo dabcay sidii hore isla markaana uu haatan muujinayo rabitaan ku saabsan in uu ka tanaasulo damiciisii ku aadanaa heshiiskii muranka dhaliyay ee badda kaas oo ka hor yimid ama si weyn ay u hortimid dawladda Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya ayaa haatanba ku adkeysanaya isagoo jooga magaalada Ankara ee dalka Turkiga in wax kulan uusan la yeelan doonin ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya haddii wax isbedel ah uu ku sameeynin heshiiskii uu la galay maamulka Soomaaliland iyo sidoo kale faragelinta uu ku hayo gudaha dalka Soomaaliya cadaadiska dawladda Itoobiya ayaa ku sii kordhay marba markii ka sii dambeysay dawladda Soomaaliya ayaana ugu sii dartay markii ay sheegtay in ciidamada howlgalka midowga Afrika u jooga ee dalka Itoobiya aysan ka mid noqon doonin howlgalka cusub ee Soomaaliya imaan doona sanadka 2025 ee awesome Itoobiya ayaana dawladda Soomaaliya waxay u sheegtay in ciidamadeeda isaga baxaan goobaha ama gobolada dalka ay kaga sugan yihiin ilaa hadda ma cadda kulanka sida uu noqon doono iyo sida uu ku furmi doono laakiin wararka ayaa sheegaya in marka hore kulanka uu noqon doono mid labada dhinac loo dab qaadayo ay u dhaxeen doonaan mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Turkiga kadibna haddii ay arinta sidaas ay ka soo dabacdo ama sida dawladda Soomaaliya ay rabto in ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya uu wax ka bedelo damiciisa ku aadan heshiiskii horaantii sanadkan uu la galay Soomaaliland uu wax isbedel ah oo san la imaanin in halkaasi ay lagu kala tagi doono haddaba wixii warar ah ka soo kordha kulanka labada dhinac ee Soomaaliya iyo Itoobiya ee gaar ahaan mas'uuliyiinta ka kala socda ay ku yeelanayaan dalka Turkiga wararkeena dambe ayaa idin kula socodsiin doona haddii ay karaan noqdo haddii intaas soo gaartay muuqaalka like saar siina share garay si saaxiibada kale uu gaaro haddii aadan ka mid ahayn saaxiibada sida joogtada nagu xiran fadlan follow the page-ka si mar walba u hesho warar sugan oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamkaba